xaflad aad iyo aad u ballaaran ayaa lagu qabtay magaalada Bristol oo dalkan Ingiriiska ka tirsan xafladaasi oo si weyn loogu taageerayay Dr. Cabdi Maxamed Axmed oo isagu u taagan tartanka musharaxa madaxweynenimada ee dalka Soomaaliya haddaba xafladaasi lagu qabtay magaalada Bristol waxaa ka soo qayb galay dadweyne aad u fara badan oo ka kala socday qaybaha bulshada ee magaalada Bristol haddaba halkaasi daawadayaal waxaa ugu horreyntiiba halkaasi ku soo dhoweeyey waftiga uu murashaxa madaxweynuhu uu hogaaminayay reer Bristol caawisay u dhayin horta sheekh iyo shariif waa wada jawaab wax maqal ma lahan marka waxaan ku leenahay horta Bristol ku soo dhawaaw Bristol caalam la joogo waxay diyaar u tahay iyo hool wax alla waxaad adiga Soomaali ugu soo talagashay inaad naga hagran horta caalamka noogu soo xadiisay koob nin dhalinyaro oo wax soo bartay oo isbaaro iyo qoray wax ku raadihay oo aqoon iyo maskax wax ku raadinayo in la taageero mudaya markaan ku hadlaya jaaliyada Birmingham Dr. Cabdi Maxamed Axmed waxay ku leedahay madaxtinimada Soomaaliya aad rabtaa la kugu guuleeyo waxaan ka markaa kacaya magaalada Bristol waa magaalo wanaagsan xaqiiqatan waxaan ku leeyahay hamigaaga Ilaahay ku sahlo adinkuna maaragtay sidoo garab taagantii waligood garab taagnaada kadib halkaasina waxaa dhalinyarada reer Bristol ay ka soo jeediyeen riwaayad aad iyo aad u taabatay dadweynihii ka soo qayb galay xafladaasi lagu taageerayay murashaxa madaxweynaha waxaanay ka hadlaysay qurbaha iyo dhibaatada ku haysata dalka Soomaaliya horta saaxiib meeshan waad aragtaa صح adiguna warbixintii waad siisay صح wadankana wuxuu u baahan yahay in wax badan laga qabto صح anigu waxyaalaha ugu horeeya ka qabanaya waxa weeye horta dadka Soomaaliyeed wada hadashiyo ugu dambeyntii halkaasi waxa isagu khudbad ballaaran ka jeediyay oo isagu markaas uu kaga warramayo taariikh nololeedkiisii iyo guud ahaanba barnaamijkiisa uu ku hogaamin doono haddii uu ku guuleysto tartanka musharaxa madaxweynenimada ee dalka Soomaaliya musharaxa madaxweynaha Dr. Cabdi Maxamed Axmed ku soo dhawaad mikrofoonka haynin u taagan musharaxna ah xilka madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed safarkaygan inaan Soomaaliya wax u qabto ma ahan mid bilowday sanadkan sida hadda aan ku sheegay weligeyba waa jeclaa wadankayga inaan wax u qabto wuxuuna ka soo bilowday tan iyo markii aan u baxay inaan waxbarasho aado oo aan aado wadankaas India halkaas oo aan jaamacad u tagay oo aan bilaabay in aan barto cilmiga siyaasadda ama political science annagoo dhan iyo idinka iyo ummadda Soomaaliyeed dhammaan waxaan wada fiirinaynaa wadanka Soomaaliyeed bal in xal la gaaro sida aan la socotaan Soomaaliya waxa haysto waa dhibaatadaas oo ah dhibaato siyaasadeed waxayna u baahan tahay in lagu wajaho xal siyaasadeed waxaan isu sharaxay oo kaliya in aan dalkayga iyo dadkayga wax u qabto aniga oo dana gaara aan wadan laakiin diyaar u ah inaan dadkayga saacido waxaan jeclahay inaan wax weyn ka qabto arrimaha nabadgelyada waxaan jeclahay Soomaaliya inay xiriir wanaagsan yeelato wadamada adduunka oo dhan aniga waxaan jeclahay Soomaaliya in aan si wanaagsan oo cadaalad ah aan ku maamulo haddii Ilaahay raali ka noqdo waxaan tacsiyo dirayaa ninkii wasiirka ahaa meeshaas ku dhintay Ilaahay u naxariisto min Soomaaliya oo dhan ka wada tagay ayuu ahaa ehelkiisana waxaan uga tacsiyeenayaa waxaana Soomaaliya Ilaahay uga baryaa haddii Ilaahay in Ilaahay Soomaaliya gaarsiiyo horumar iyo barwaaqo dhibka ay ku jirto in Ilaahay ka saaro aad ayaa u mahadsantihiin walaalahayga qaaliga ee xafladan caawa nagala soo qayb galay ama musharax madaxweyne Cabdi Maxamed Axmed ina halkan ku soo wada dhaweyno adinkana aad nagu garab gasheen nagu taageerteen aad iyo aad u mahadsantihiin walaalkan wuxuu u soo sare kacay oo u soo istaagay inuu walaalaheena Soomaaliyeed waxa uu bartay in uu maxay wax ugu qabto uu soo Soomaaliya hadalaato Soomaaliya ha israacdo Bristol I love you isku soo wada duubo haddaba xafladaas waxay u dhacday sidii lagu talagalay Daahir Ismaaciil Xaaji Aadan Universal TV Bristol